ilaalintana ayaan lagu tarin qofkii dhirta ku raaho la arko in ama bir lagu dhufto ama la dhibaateeyo yaan lagu tarin booliiska haddii alla idmo booliiska loo adeegsado. Bismillahir Rahmanir Rahim, alxamdulillahi rabbil caalamiin. waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo taliye ku-xigeenka booliiska, taliye ku-xigeenka labaad ee degmada Qurcaal, gudoomiyaha deegaanka Buuhood, culimo udiinka, dhalinyarada dhammaan deegaamada halkan iskugu yimid qaybahooda kala duwan halka fadhiya dhammaantiin waa salaamantihiin. salaan kadib waxaan kaga mahad celinaynaa gogosha iyo martiqaadka wanaagsan ee noo sameyseen iyo sida wanaagsan ee iskugu xiran tihiin iyo sida wanaagsan ee aad uga fakaraysaan muwaadinimada dalka iyo deegaanka aad hadda ku nooshihiin. waa waajib idin saaran inaad ilaashataan dalkiina iyo dadkiina iyo deegaankiina, inaad ilaashataan waajib idin saaran waaye iyo diintiina. qof kaste oo qaangaar ah ayay waajib ku tahay inuu deegaanka meeshuu ka joogo uu ilaaliyo, dhammaanna uu ku fikiro sidii uu Soomaalinimo ku ilaalin lahaa, dalka Soomaaliya iyo diinta iyo dadkaba soo ku ilaalin lahaa, inuu iyadana ku fikiro waa loo baahan yahay. waxaan kaga mahad celinaynaa marka sida aad dhirta ugu taagan tihiin iyo wax kasta oo xun oo deegaanka fasahaad ku keeni kara. haddii aynaan wax kasta oo xun aynaan ka hortagayn wadnaan amniga la kaashanayn, dhalinyaradan diintu ka muuqato oo quruxda badan meesha ma fadhiyo mana joogin dadkan dhalinyarada ah. xaqiiqdii waa dad ka dambeeya dad wax kartana ay ka horeeyaan oo ka taxadaraya horumarkooda iyo sharaftooda iyo sidii ay ku gaari lahaayeen hiigsi fiican inta ay dunida saaran yihiin. waxaan rabaa marka qodobadan aad ka cabateen insha Allah haddii alla idmo waxaan malaynayaa waa dhirta oo aad dareemaysaan ama aad aragteen dad xaalufinaya iyo tuugu iyo taraagiska oo ayadana aan u jeedo hadeertaan deegaankiinan hadda intaan hor fadhidaa waxaan isleeyahay dadka taraagiska isticmaala sidaan uma eka, laakiinse meeshaan ba imaamayaan u malaynayaa haddii alla idmo. si kastaba ha ahaatee inta ay fasahaadinayaan ka badan. waxaan rabaa marka haddii alla idmo inaan intaana taas ka hadlin ku hormaro bulsho wanaagsan aad tihiin, sida sharafta leh oo aad waxyaabaha dhacaad ula soo xiriirteen booliiska una aad karabsanaysaan waan kaga mahad celinayaa. waayo booliisku wuxuu ilaaliyaa nafta iyo maalka, dadkana wuu kala ilaaliyaa. qof walba marka waxaa looga baahan yahay shakhsigiisa oo halkan fadhiya inuusan isagu sharciga gacantiisa ku gudan. kan kuu dhow walaalka ahaa maaragtay waxa idin dhexmari karaa waa inaad marqaati ka sameeydaa booliiska aad u soo dacwootaa. inaguna waxaan ballan qaadaynaa haddii alla idmo si wanaagsan inaan markaas aan u kala xalino dadkaas oo cadaalad ah. marka si guudaad maanta u soo dacwooteen, cabashada aad u soo gudbisateen, waan kaga mahad celinaynaa. waxaan kaloo kaga mahad celinaynaa la shaqaynta booliiska aad la shaqaynaysaan. waayo ninka dharta baabi'inaya ama tuugu iyo ninka taraagiska wada intaba way dhuuman lahaayeen haddaan intaanu bulsho ah aysan soo sheegaynaysan lahayn war intaanan dacwo ka nahay hana laga qabto, idinkana dhibaato idin geysan lahaayeen. insha Allah haddii alla idmo dhirta waa mid lagu nool yahay. dadku bilow aadamka waxay ku nool yihiin xoolahay ku nool yihiin, xooluhuna waxay ku nool yihiin dhirtay ku nool yihiin. marka haddii iyada la waayo waxaa imaanaysaa inaan nolol bilow aadan jiraynin. marka sida aad u ilaalinaysaan ula sii dhowaada haddii alla idmo. ilaalintana ayaan lagu tarin
qofkii dhirta ku raaho la arko in ama bir lagu dhufto ama la dhibaateeyo yaan lagu tarin booliiska haddii alla idmo booliiska loo adeegsado waa meesha aan ka leeyahay aan sharciga gacanta lagu fushan marka waan kaga mahad celinaynaa annaga u taagan inaan idin karab siino inaan la shaqeyno bulshada una shaqeyno annaga ayaa u taagan waan in kala shaqeynaynaa insha Allah haddii alla idmo wax kasta ee aad ka soo cabataan sida tuuka deegaanka xaalufinta dhirta annagoo ka karab siinayno agaasimaha dhirta iyo taaqa ee degmada Qurcaal insha Allah marka waad mahadsantihiin waxaan kaloon rabaa halkaan inaan uga faa'iideysto dadkan deegaanka dadka deegaanka waxaa jiro hay-ado soo gaarsiiya deeq hay-adahaasi deegaankii ay imaadaan haba yaraadaanba 2 qof ha wadaan haday rabaan deegaanka inta imaadaan 2daas qof markay keenaan isla markaas laga qaato loogana mahad celiyo waxaa soo gaaraya wax badan deegaanka ay amni iyo nabadgelyo ku helaan waxaa soo gaaraya wax badan waxaan rabaa marka haddii alla idmo hay-adaha waxa ay keenayaan hadday 5 qof keenaan hatta intaanoo dhan kuma filna qof walba adiga hal lagu siiyo hadduu isiraane 5 meesha ka baxaysa hay-adiina hadda sida 5taas meesha uga baxday ee ayaduna uga baxaysa waxaan rabaa marka si amni ah oo nabadgelyo ah in hay-addu wixii ay keento ay meesha ugu baxaan 5 qof haday keento 5 in kugu taran oo adinku isku naxariisanaya inaad dhahdaan 5tan qof waan kaga mahad celinaydaa waxaad soo gaarsiidaan waxaad gaaraydaan dhammaan ummadda wax deeqo oo la helo ilaa nabadgelyana waa heshay wixii hay-addu ay deegaanka keentane waa ay fududaadeen marka haddii alla idmo waxaad gaaraydaan adinka oo dhammaantiin waxbarasho helay ceelal helay caafimaad helay oo meeshiina ay kugu imaatay waayo nabadgelyo iyo dad u baahan inaad tihiin aad arag marka waa mahadsantihiin kuuleysta waxaan kaga mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaadba sida iskugu xiran tihiin waxaan rabaa horumar inaad gaartaan markaan idin leeyahay hay-adaha idin imaanaya si amniga na ku soo dhaweeye si amnigana waxay idin siiyaan si fudud u fududeeya si waxa dambe imaanaya ay hay-addu ugu soo xisto deegaankaas marka waa mahadsantihiin kuuleysta